ku soo dhawaa YouTube channel-kan waa YouTube channel oo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u leh oo xisaab heer dugsi sare ilaa iyo heer jaamacadeed aan rajaynayna soo dhigo adigoo mahadsan subscribe ku dhufo gambaleelkana saar sa ula socotid wax walba aan soo dhigo adigoo mahadsan cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay meeshii lee kasii wadeena first order differential equation meeshana kasii wadeena example-keena koowaad videogan waxaan dhahaynaa labo y derivative lagu daray x y oo la mid ah eber su-aashaa waxay tahay saa ugu shaqeyna horta intaana ka shaqeyn intaana degdegin waa inaa laba u wada qaybina okay inaa laba meel kasta u qaybisid sababtay tahay waxaa rabnaa y derivative inay gooni u istaago y derivative lagu daray x loo qaybiyo labo y oo la mid ah eber eber loo qaybiyo laba waa eber laakiin laba eber loo qaybiyo macquul ma okay maxaa sameynaa markay hawshaan imaato tan koowaad aad samaynaysid waxaa waaye wax walba oo ya-dan ka horeeyo waa inaa integration ku samaysid inaa kor dhigtid integration inaa ku samaysid meeshaa ka dhihi lahaaya x loo qaybiyo labo maka fududa miyaanaan dhaasaan jawaabtan oo soo baxaysa waxaa waa haddaa integration ku samaysid waa iska arki doontaa waxaa waaye la kor dhigay 25 x square okay marka integrationka haddii macnaha isdhehaysid waa haddaa ku xuntaa xir dhib male videoyaashayga hore fiirso saa macnaha u fahantid xaggaas si fiican uu sharaxay midda labaadna markii aad soo gudubtid saan waxaa sameynaya kan waxaa ku dhufanaya meel walba waxaan dhahaa y derivative lagu dhuftay eber dhibic 25 x square lagu daray eber dhibic 5 x eber dhibic 5 x square oo intaa waayada gelina y lagu dhuftay eber dhibic 5 eber waa markaas okay waxyaabo kala duwan haysanaa marka tan saddexaadna waxaa waayay product rollkan waa inaan gadgadaal u isticmaalnaa lagu daray u times v derivative marka inaa hadda intaa haysanaa inaa saan helnaa rabnaa waxaan sameynaynaa u waa y u derivativena waa y derivative saa u jeediin v waxaa waaye eber dhibic 25 iska ilaaliya eber dhibic 25 x square v derivativena waxaa waaye eber dhibic 5 x eber dhibic 5 eber dhibic 25 x square oo lamida eber lagu dhuftay okay u e v waa haysanaa marka muhiimadda waxaa waa labadan haddaa haysana intaa geli karnaa inta kale waa isku meesha mararka qaarkood iska adagtaa sidaa u aragtid u waa y waxaa ku dhufanaynaa v oo eber dhibic 25 x square oo saasa haddaad derivative samaysid waxaa hele saas haddaad derivative sameyno anakoo product rollka isticmaalayno qaacidadan kore u fiirso
y derivative waaya waxaa ku dhufanaa v waa a eber dhibic labaatan iyo shan x square ugu daraya u v derivativena haddaa kan derivative haddii derivativeka uu kugu xun yahana waxaa sameynaya videoyaal tiro badanaa ka sameeya waa fiirsan kartaa marka haddii aa kan derivative ku sameeyo bilowga hore waa e eber dhibic labaatan iyo shan x square waxaa derivative ku sameynaa waxaa kor yaalo waxaa waa eber dhibic labaatan iyo shan ugu dhufta labo x marka labadan waxay isku noqonaya eber dhibic shan maaha eber dhibic shan x marka isla sidii aa hele marka aa usoo noqono cashirkeena waxaa haysanaa y derivative lagu daray x labo y oo eber ahay waa ka tagnay waxaa dhahnay y derivative lagu dhufta ee labaatan iyo shan square lagu dara y lagu dhuftay eber dhibic shan x e eber dhibic labaatan iyo shan x square oo lamid ah eber markaa saas dhahnay saasaa helnay waxaa sii dhahaynaa kawan sii fudeynayna waxaa sii dhahaynaa ya lagu dhufta e eber dhibic labaatan iyo shan x square derivative ah oo lamid ah eber okay waxaan sameynaynaa integraalda labada dhinac ka dhigaynaa oo inta dy ah integral into dx ah waxaan sameynaynaa kabacdina kan waxaa soo baxa un waxa dhexda ah y lagu dhufta eber dhibic labaatan iyo shan x square oo lamida kanna maxaa soo baxa haddaa eber ku samaysid integral c constant haddaa constantiga derivative ku samaysidna waxaa kusoo baxa eber maha marka waa bilcagsi maxaa sameynaa idaa labada dhinac u qaybina waxay soo baxaysa markaas ya waxay lamid tahay cayn loo qaybiyey eber eber dhibic shan x square kan wuxuu noqon karaa san okay negative marka negative inay noqoto waay maadaama potence rule isticmaala okay su-aasha xigtaa waxay tahay saa constantigan ku hela saa ku heli karaa kaas marka exampleka ayaa isticmaalaynaa anakoo helayn constantigas okay exampleka labaad waa bobsina examplekena labaad waxaa dhihi karaa saan ugu daray maxaan dhahaa wax yaraa adkeena y oo lamid ah eber intan waxaan dhahaa eber okay inta maxaa ula jeedaa ingiriiska waxaa lagu dhahaa boundary condition macnaha waxaa calaamadeene ama sumad u yeele macnaha xaduudda aa leedahay markuu x eber yahay functionkan wax walba noqon karaa maaha function wuxuu noqon karaa for example waddan dadkiisa ay korayaan waxaa rabtaa inaad ogaatid haddaa eber ka soo qaadid 2020
haddaa ka bilowdid ilaa iyo 2030 macnaha intee dadka koreen camal Somali for example waa heli kartaa haddaa ogtaa information marka equationkan wuxuu noqon karaa wax walba xoolo dhintay dad dhintay guri kuleelkiisa baabuur ordaayo diyaarad kaceesa xawaaraha cabire waxyaabo badan marka differential equation waxyaabo badan aa loo isticmaali karaa macnaha okay balaa ka shaqeyna kan wax dhib badan uu eg yahay saa hore u sheegay ya-dan waxaa ka horeeya integration ku sameynaya tan koowaad maxaa haysanaa integral x dx integral da ku sameysa e to the x lewa marka waxaa waaya jawaabta e to the x okay midda labaad ha ka cabsanina muhiimadda waxaa waaya inaad qaacidada ka siisid wax walba iska imaanaa midda labaad maxaan dhahay waa inaad ku dhufatay kan meel walba qaacidada la raaci midda labaadna waa e derivative lagu dhuftay x lagu daray x lagu dhuftay ama waxaan dhihi karaa sida waxa system igu yeeshaan e to the x oo lamida eber okay saddexaad waa maxay saddexaad waxa waayay product ruleka gadgadaal u isticmaalaynaa lagu daray v derivative afaraadna waa maxay afaraad waxa waaye waa inaan dhahnaa waxa u ah waxa v ah waa u jeedin u waxa waaye y u derivative-na waa y derivative v-na waxa waayay e to the x v derivative-na waxa waayay e to the x lagu dhuftay e x baha marka product rolka isticmaalaynaa shanaad haddaa qaacidadan saa ugu shaqeysid waxa fudeeday noqonaya shanaadna waxa waa u e v waa haysanaa u-da waa y v-dana waxa waa x maha derivative baa dhahnay oo lamida eber maaha bcause kan waa haysanaa marka kan aa soo fududeeye saana ka dhigay qaybtana fududeeye waxaa hoos ku qoraa ka dhigay eberkana waa eberkaas maxaan sameynaynaa saa hore u sheegay integral labada dhinac ka saare integral inta dy integral inta oo dx labadan integral iyo derivation waxa waaye bilcagsi isku yihiin lixaad waxa dhexda ku jira iyo soo baxa y lagu dhuftay x oo lamida eber hadda integration ku samaysidna waa c waa cayn ama waxay rabtay noqon karta ma fahamta kan haddaa arabna ya-da keligeeda labada dhinaca u qaybinaynaa waxaa helaynaa cayn loo qaybay x maaha oo lamida cayn negative to the x saas waa marka hore maxaa ogna halaas markaa imaatid waxaa hore noola siiyey x markay eber tahay functionka waa eber marka waa inaan ogaanaa functionkeena wuxuu noqonaa markii x eber tahay okay functionkeena waa kana y oo lamida c lagu dhufta e negative to the x marka inaan ka isticmaalnaa waxaan dhehaynaa eber oo lamida c lagu dhuftay e negative
e marka kan waa hal ma fahant negative hal waaye inta waxaa isoo baxaysa negative hal oo lamidaas c ugu dhuftay e okay waxaa soo baxday c waa ever okay marka functionkana ever oo noqona inkastoo aan bedeli karno boundary conditionka waxaa ka dhigi karnaa saan waxaana macquul ahaynaa soo baxa wax yar macquulna ay noqon kartaa laakiin example ahaan because exampleda markaa baxana maskaxda ka keenaa si okay ay faahsantaha waxaa ka wado haddii lacalla eesaan ahaa lahayd boundary conditionka oo inta ever ahaa lahayn soo yar way ka qurxoonaa lahayd xaggan halaa saaran marka sida markaas sida waxay noqon lahayd hal oo lamida c negative saasay noqon lahayd maaha taasna waxay la mid noqon lahayd minus negative one sababtee taa wax walba haddaa ewer kor saartid waa hal maaha hadal kugu daalin c waxay la mid tahay e c haddee e la mid tahay functionkeena wuxuu ahay y oo lamida c e functionkeena wuxuu ahay c oo lamida y negative y to x cda waa e marka waxaa haysana e lagu dhuftay e negative x haddaan rabno waa soo gaabi karnaa waxaan dhihi karnaa e hal laga jara x xisaab oo cajiib ah okay waxaa samayn kartaa example kastoo yar adagaa qaatay dhib ma leh qaacidadii aa isticmaaloyaa waqtigana waxaa waa aad u dheeraaday taas waa ka cudur daaraha marka muhiimadda waxaa waa video ku noqo tartiib waxaa sameyna intana waxaa waaye un examplada markaa soo qaadana waxaa iska soo qaataa oo isla markii intaa video ku hadlaa example ah madaxay ka keenay marka bal muhiimadda waxaa waa qaacidada wixii qalad ee aa aragtidna waxa waa ila soo socodsii kartaa commentiga kusoo qor qalad ee aa aragtay videogana intaa ku joojinaa ilaahay tawfiiq maadsantahay